filimkeena maanta waxa uu ka bilaabanayaa halkan labadan askari waxa lagu kala magacaabaa Tom iyo Michael. dowladda Mareykanka ayaa u soo dirtay si ay uga fuliyaan mission Sahara North Africa. buurtan korkeeda ayay saaran yihiin waana meeshii ay ku fulin lahaayeen missionkii loo soo diray. waana in laba ka mid ah burcada ay halkan ku toogtaan. waxay sugayaan inta ay imaanayaan burcadii ilaa markii dambe Tom uu arkay baabuurtan halkan soo socota. isla markiiba raadiyaha ayuu daaray si uu ula socodsiiyo saraakiisha ka sareysa. baabuurtan ayay wataan burcada la doonayay inay dilaan, laakiin waxa qasabay in laba ka mid ah burcada halkan saaran la dilo. isla markiiba Michael waxa uu fiirinayaa dhinaca kale, waxa uu arkay in group lugeynaya ay halkan ka soo socdaan watana awr. labadii askari aad ayay u yaaban yihiin, waxa ayna sugayaan bal waxa ay halkan ka sameeyaan labadan group ee isku soo socda. groupkii lugeynaya ayaa mid ka mid ah awrtii dhulka fariisiyay, halka groupkii kale ee baabuurta watayna uu ka soo degay ninkii booska ahaa gaariga, waana ninka la rabay in la dilo. aad ayaa loo wardiyanaya, ciidan badan ayuu sitaa, waxa la socda wiilkiisii. Michael waxa uu isku diyaarinayaa inuu missionkii fuliyo ilaa markii dambe uu arkay gabadhan laga soo dejiyay awrka. waxa uuna gartay in halkan ay ka socoto xaflad aroos. isla markiiba saaxiibkii ayaa waxa uu ku oranayaa ninka madaxa ku dhufo. isla markiiba Michael waxa uu la hadlayaa sarkaalka ka sareeyay, waxa uuna ku leeyahay halkani waxa ka socota xaflad aroos, loomana baahna in halkan mission laga fuliyo maanta. waxa uuna ka codsanayaa sarkaalkiisa in la baajiyo missionkan, laakiin waa uu ka diidayaa ilaa markii dambe uu xabad kas ah uu seegareeyo. askartii ayaa kusoo jeesanaysa, waxaana la ogaanayaa meesha ay joogaan ilaa markii dambe la xabadeeyo. ninkii booska ah baabuurka ayuu ku cararaya, isaga iyo gabadhii aroosada ahayd waa ay kala yaacayaan. Michael iyo saaxiibkii waa ay soo cararayaan, waxayna soo korayaan buurahan aadka u dhaadheer. laba gaari oo ka mid ah baabuurtii ay wateen burcada ayaa soo baxsanaysa. ilaa markii dambe ay arkeen meeshan buurta ah, waa iska tuureen iyagoo iska hormariyay qoryahoodii. dhulka ayay yimaadeen, qoryihii ayay soo qaateen. Michael iyo Tom waa ay soo carareen ilaa markii dambe ay halkan kaga dhunteen cadowga si ay halkan ugu nabad helaan. laakiin isla markiiba Michael wuxuu arkayaa mid ka mid ah baabuurtoodii oo u soo dhawaatay. waa uu fiirinayaa, waxa uuna gartay haddii uu sugo in la qaban doono. ilaa markii dambe Michael uu buurta shiishay, kadibna uu ku dhuftay xabad si uu jihada uga lumiyo. waa ay qaylinayaan, waxa ay leeyihiin dhinaca kale ayay joogaan. ilaa markii dambe baabuurkii ay la laabteen, laakiin waxaa timi duufaan aad u culus, waana duufaan ka dhacda saxaraha. Michael iyo saaxiibkii afka ayay duubteen, waxa ayna ku dhex jiraan duufaantii. waa ay ka soo baxeen duufaantii, waxayna soo lugeynayaan saxarahan cidlada ah, mana garanayaan halka ay u socdaan. Michael ayaa dhulka jiifsaday, waxa uuna la soo baxay qorigiisii. meeshii ayuu diiradda ku qabanaya, waxa uuna arkayaa waana alwaaxan ay ku dhegan tahay jiingadu oo ula muuqda inuu qof yahay. kadibna waxa ay kusoo dhacday labadiisa lugood dhexdooda. Michael waa uu fiirinaya, waxa uuna arkayaa inay ku qoran yihiin hadalla luqadda carabiga ah. saaxiibkii Tom ayaa gadaal la soconaya ilaa uu ku istaaga miino dhulka ku aasnayd. isla markiiba waa uu qaylinaya, laakiin Tom dhulka ayuu ku dhacay, waxaana la kacday miinadii. labadiisii lugood mid ka midana waa ay go'day. Michael waa uu qaylinaya, laakiin saaxiibkii ma caawin karo, isaga laftirkiisa waxa uu ku taagan yahay miino. waa uu qaylinaya, waxa uu ku leeyahay steji, aniga ayaa ku caawinaya, laakiin saaxiibkii waa uu dhiig baxaya. labadiisii lugoodna waa ay go'een. Tom waxa uu soo qabsanayaa irbadan, waana irbad dhiig joojin ah. irbadii ayuu isku durayaa. saaxiibkii aad ayuu u walwalsan yahay ilaa markii dambe Tom isku dayay inuu soo jiito boorsadii ayuu gacanta la helay. Tomna waxa uu ka fakarayaa sidii uga badbaadi lahaa miinadan dhulka ku aasan uuna ku taagan yahay. hal mar ayuu wuxuu arkay saaxiibkii oo baaskolo la soo baxay, ilaa markii dambe uu xabad madaxa isaga dhuftay. Michael aad ayuu u qaylinayaa, waa uuna iska ooyayaa. waxa uuna arkay saaxiibkii oo gacantiisa isku dilay. aad ayuu u walwalsan yahay, mana yaqaana waxa uu sameeyo. waa uu fariistay Michael, mindidan ayuu la soo baxay, waxa uuna fiirinayaa miinada uu ku taagan yahay, isagoo ka qiyaas qaadanaya intay dhulka u jirto. ninkan Afrikaanka ayaa arkay, laakiin waa uu iskaga tegay meeshii. Michaelna waxa uu ku mashquulsan yahay inuu ogaado cabirka ay dhulka u jirto miinadani. Michael waxa uu iska furfuray xargihii ku xirnaa kabihiisa si uu ugu soo qabsado boorsadii Tom. qorigiisa ayuu dhuunta ka furay, waxa uuna ku xiray birtan si uu boorsada u soo jiito. boorsada ayuu soo qabsanayaa Michael, waxa uuna kala soo baxay raadaarkii telefoonka ahaa oo ay kula xiriirayeen taliskoodii. waa uu la hadlayaa, waxa uuna ku leeyahay xaalad xun ayaa ku jirnaa, Tomna waa uu dhintay, aniguna waxa ku taaganahay miino. laakiin taliskii waxay u sheegeen inaysan suurtagal ahayn inay xilligan u yimaadaan duufaano ka dhacaya saxaraha dartood, waxaana loo sheegay in 51 saacadood kadib ay u imaan doonaan. Tom waa uu quustay, waxaanu ku khasban yahay inuu 51 saacadood sugo. isla markiiba duufaan ayaa timi, wuxuuna afkiisa ku xiranayaa maradan. duufaantii waa ay dhaaftay. Michael waxa uu iska furfurayaa maradii, kadibna saaxiibkii ayuu arkayaa hoos jiifa ilaa uu markii dambe koofiyad madaxa ka saaray. saacadihii waa ay socdaan. Tomna waxa uu ku xirtay saacadiisii gacanta 51 saacadood kadib in loo imaan doono. 43 saacadood ayaa u haray. biyihii ugu dambeeyay ayuu afka ku shubtay ilaa markii dambe Michael baaskooda uu la soo baxay, kadibna uu kor u riday si uu helo caawimaad. laakiin markii dambe isaga ayaa madaxa iska saaray ilaa uu markii dambe arkay ninkan Afrikaanka ee ku soo socda. isla markiiba Michael waa uu soo baxay baaskooladiisa isagoo ku qabtay, laakiin waxa uu arkay inuu yahay nin reer baadiye ah. waa uu qeyliyay, waxa uuna ku leeyahay waxa u baahanahay biyo aan cabo iyo sidoo kale inaa ii soo qabatay raadiyahayga iga fogaaday. ninkan waa uu la yaabayaa ilaa markii dambe uu ku dhaho maxaa
ku helay. Michael waxa uu oranaya waxa aan ku taaganahay miino waana ila qarxaysa haddii aan soo dhaqaaqo, laakiin ninkii waa u imaanaya waxa uuna ka qaadaya caagadiisii biyaha ahayd si uu biyo ugu soo shubo waanu iskaga tegayaa. In yar kadib gabadhan ordaysa ayaa imaanaysa. Michaelna waxa uu arkaya in gabadhan si gees ay u ordayso waa uuna yaaban yahay. Gabadhii ayaa u timi waxayna u dhiibtay biyihii ayuu cabayaa Michael ilaa markii dambe gabadhii ay ka soo saartay boorsadan yarta ah askarigan ka samaysan kartoonka way u dhiibaysaa waa uuna ka qaadanaya. Michael waxa uu ku leeyahay iisoo qabo raadiyaha halka yaala, laakiin ma fahmaysa waxa uu ku hadlayo. 38 saacadood ayaa u dhiman Michael. Habeennimo ayaa la gaaray. Michael waxa uu isku dayayaa inuu dabkan shito si uu uga badbaado bahalaha ku nool saxaraha, wolfiga ama yeeyada ku nool saxaraha. Dabkii ayaa u baxaya. Telefoonkiisa ayuu la soo baxay waxa uuna daawanayaa sawirada saaxiibtiis. Michael aad ayuu u qiiroonayaa. dabkii ayaa ka baktiyay. Afartiisa dhinacna waxa ka yeeraya cida ayda gaajeysan waxaana u bilaamatay walwal. Michael aad ayuu baqsay waxaana la soo baxaya qorigiisii ilaa uu afarta dhinac xabad u rido ilaa markii dambe uu arkay in saaxiibkiis uu yeeydani jiidatay. Yeey kamid ah yeeyda ayaa dib ugu soo laabtay laakiin nasiibkiisa oo fiican yeeygii waxa uu ku istaagay miina halkan taalay waa ayna la qaraxday. Subaxnimadii ayaa la gaaray. Michael wali sidiisa ayuu u fadhiyaa. Ninkii ayaa dib ugu soo laabtay. Michaelna waa uu qoslayaa. Ninkan waxa uu markasta weydiinayaa su'aalo aad u khaldan ilaa markii raadiyihiisa uu soo qabtay waa uu soo dhinac istaagay waxa uu u dhiibay raadiyihii waa uu isaga tagay ninkii. Michael kabtiisa ayuu kala jeexay ilaa uu ka soo saaray bahalkan dabqalooca ah. Xanuun aad u daran ayuu dareemayaa. Meel kasto jirkiisa kamidana waa ay xanuunaysaa waxaana ku faaftay suntii. Waa uu yaabaya waxa uu arkay saaxiibkii Tommy oo nool oo boorka iska jafaya agtiisana taagan. Laakiin Michael maskaxdiisu ma joogto waxa uuna ku jiraa Rio. Habeennimadii ayaa la gaaray. Afarta dhinac waxa ka soo istaagay yeeydii aadka u gaajeysnayd. Michael la waxa uu afarta dhinac u ridayaa xabad si ay uga fogaato ilaa mid kamid ah yeeydii uu lugtiisii ku dhagay waa uu iska furfurayaa ilaa uu markii daba dilay. Subaxnimada ayaa la gaaray. Raadiyihii ayuu arkay oo la hadlaya Michael waa uu ka qabanaya waxaanu u sheegayaa in 17 saacadood kadib ay u imaan doonaan waqtigiina ay wax ku darsadeen. Ninkii ayaa dib ugu soo laabanaya waxa uu siinayaa daawo waa uu isaga tagayaa mar kale. Michael mar kale ayuu riyadiisa galayaa waxa uu arkayaa aabihiisa oo la jooga meeshan saxaraha ah waa uu yaaban yahay. Jirkiisa oo dhan waa isbedelay. Michael waxa uu isku dayayaa inuu meesha ka dhaqaaqo si uu u soo qabsado bahashii uu dabka ku daaran jiray. Isma oga waxa uu samaynayo noloshiina waa uu ka rajo dhigay ilaa markii dambe si caadi ah u soo dhaqaaqay. Geesaha ayuu fiirinayaa waxa uuna filayay inuu dhiman doono laakiin waa uu isku naxayaa ilaa uu markii dambe dhulka ku dhacay. Waa uu soo gurguranayaa si uu u fiiriyo wixii uu ku taagnaa waxa ay ahaayeen ilaa markii dambe uu ciida ka soo saaray qasaacadan dhulka hoosteeda ku jirta ilaa markii dambe uu daboolkii ka qaaday kana soo saaray boombalihii askariga ahaa ee gabadhu ay siinaysay. Aad ayuu u murugoonayaa waxaana soo xasuusanayaa inuu saaxiibkii caawin lahaa dii uu ogaan lahaa inuu ku taagan yahay daasadan. Aad ayuu ooyayaa ilaa markii dambe askartii ciidamada Mareykanka u yimaadeen waa ay soo kaxayeen waxaana ka soo degay aeroboortkii waxa halkan ku soo dhaweynaya xaaskiisii. daawadayaal filimkeeni maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynay. tan iyo inta iskaga imaan doono muuqaalka xiga waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.